dowladda hoose ee degmada Berbera ayaa maanta keentay qalab cusub oo ah booyad cusub oo nooca daamurka ah oo noqonaysa tii ugu horeysay ee iibsadaan guud ahaanba dowladaha hoose ee dalkani Somaliland sida ay ka dhawaajiyeen laba xildhibaan oo ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Berbera kuwaas oo ku sugnaa madashii lagu tijaabinayay booyadaasi waxaana eeday injineero isla markaana sheegay in ay booyadani tahay mid cusub oo hawlkar waxaana hadaladii xildhibaanada ka mid ahaa booyadii ugu horeysay noocan daamurka dhalaaliya oo ay dawlad yeelato ama dawladaha hoose waxaan oran karaynaa waa tii ugu horeysay dawladaha hoose dalka oo ay nasiib u heshay degmada Berbera runtii waxay ka mid ahayd qalab yar oo fara ku tirisa oo ka dhinaa dhinaca dubahabaynta wadooyinka iyo dhismayaasha wadooyinka marka hore waxaan u mahadnaqayaa ganacsadaha booyadan suurta galiyay inuu noo keeno qaaliga ah oo la yiraahdo Mr. Cabdinaasir yaan u mahadnaqayaa sida uu dawladda hoose u soo gaarsiiyay booyada qaaliga ah ee wax ka tira doonta wadooyinka waxaan kale oo la dardaarmaya shaqaalaha dayactirka ee dawladda hoose inay booyada daryeelaan oo ay si gaara talaabadan ay dowladda hoose ee Berbera ku soo iibsatay booyadan daamurka diyaarisa ayaa waxay dhameystiraysaa qalabka wadooyinka oo markii hore booyadani ka dhinayd oo ay soo kireysan jireen taasoo maanta lagu tijaabiyay wada ay dhistay isla markaana sidii loo baahnaa ay hawshaasi uga soo baxday ugu dambeyntiina talaabadan ayaa u gogol xaaraysa hirgelinta wadooyin cusub oo ka hirgala gudaha magaalada Berbera. عبد الكريم سعيد صالح تلفزيون عالمي هو كيبل تي في Berbera.